السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلبنيو وناكسن سو نقد وناكسن waxaan rabaa galabta inaan dul istaago Sharma Boy arrin dadka aad uga dahsooneed buu banaanka soo dhiga waxaan rabaa aniguna intaan ku ogahay inaan ka sheego halkan galabta Sharma Boy oo hadlaya hadalkiisa waxa kamid ahayd ugaheenin oo waxban ugu sameeyeen wax ugu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anigu garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay ugu yiri ninaga shit wuxuu ugu yiri ninaga bas koolay waa ilaa waxa soo wacay gabar maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada noo haystaa bas aniga awoodeedu رشيد نور الله مركي أنا كده بتجا عنده وراح كبقي الواحد إنتوا كم سميه كرو وحال أحمد رشيد عنده يعني وحال إتصي فيديو ليك صوت الدلاله وده يرسم على الدلاله لا ممكن يحيزكوا الدلاله فيديو بس مركي عاركه نيكا هالكا نيكا كم بقول أصور كيس نيكا واحد على أحمد رشيد وهو هايستا إذا ما ري هذا فلاي سكوت أما كريمينال كأيو جانجسكا لا دقالما شاتك أو قبه iyo hadii la ku roon yahay awooda uu leeyahayna iyo qaabka uu adeegsadayna wax aad iyo aad idin aad u aragteen ana aan rabo in yaro kamid ah barnaamijka ka sheego horta inta aniga hawsha kala socday habeenada kamid ah ayaantii Sharma Boy lagu soo wareejiyay maaha laga wareegay YouTube-kiisa أنا هبين كاس حلي هذا الكيجا وحوها إن قبيل هان Sharma Boy دقدر تشو إنه يوتيوب كوريتشي حكتاس نكا عن كهلي يقولون لها وحليرا أفضل متشرو مركز سوق ولا سوق شيء دقدر شال أفضل وي بين دي شيء ما يورت أحمد رشيد بوه أصي توثقت كي يقول شيء haddii in kala timaadaan rag badan oo meeshaan habeenkaas taa khadka rag igula jiray waa joogaan waa nooli cadaymahoodana waa hayaayo haddii cid in kala timaado meeshaan ka wada hadlaynayo waxaan is dhahaynay intaba cadaymahooda ayagana waa hayaa laakiin hadda ma doonayo inaan idin la wadaago laakiin waagi in kala timaado ama Axmed Rashid waxaan karo ama haddii la ku roonyo cid difaacaysan arko markaas ayagana soo bandhigi doona واحد على habeenkaas أحمد رشيد inuu igu lahaa ninka la yiraahdo Sharma Boy qabiil ahaan buu u wareey ninka la u dhabar jabiyay deeq darajo soo gaar ah deeq darajo inuu qabiil ku raacay qofkii calaanka ahaa wuxuu yiri deeq darajaan ku raadinayaa waana soo qabanayaa ayuubow anaana wax kasta kaaga keenaya afkiisa habeenkii ku xigay habeenku saddex habeenka xamaynaya inay ahayd bishu labadii June inay ahayd Romania labadii June be muddo ka bacdi adiga saddex habeen ka bacdi Axmed Rashid uu soo wacay Axmed Rashid oo aan wajigii hore aan ku aqaanay aan ahayn aad degdeg badan ugu jiro hadalka boobaya waliba telefoon baan ku hadlayay tirka 6 jeer oo aan isku celis lahayn dhar igu soo celi waa ka qabtay wax ku warantaliyo wuxuu iga bilaabay ma ogtahay wiilkii aan raadinayay oo ninka dhabar jabiyay oo adna ay ugu tiri cadayntiisa ii keen hadii asagu dhabar jabiyay inuu maanta garow ka degay waxa yirmay wuxuu garow ninkaas ka dig waa gart degdeg garow inta uga hawl gashid wuxuu rabaa ninkaasi Sharma Boy inuu kala dhiciyo in xoog sanadka loo qaaday waana qabiili halka Nairobi baa liyahdaa ayuu anaga asku qabiila anaga degan wax adii alla ku rooyahay hebelaayo kala iyo hebel kala reey hebel iyo cid wax uga fulin ka dhamale hadii ciidan lacag siisay ama ciidan wax ka fuliyaan ana ka fuliyo way taqaana cid kale lama adeegsado wallahi ilaahay iga sareey waa gart maxaa sameeyaa cunugaas qabo YouTube kiina asaga gacanta ku haya fiidiyowga
uu daahe ninkii bahal ka soo dhaxadlayay cunugaa geliyey saasuu ila hadlaya youtube-kan cid ka qaaday ma jiro ninka la yidhaahdo waana khiyaali ninka la yidhaahdo garowana wuxuu u tegay inuu ninka la yidhaahdo sharma boy ku dhaho waa lay dhacayo saaxiibtinimo usii muujiyo aan laabti jirin waa taha dee sharma boy haddays arkayaan sharma boy ahaa kii youtube-ka lahaayo saaxiibkii ahaa maxaan samaynaa faraha uga qaadna marka maya magaceenay dilaysaa sharaftay dilaysaa magacooga la hadlay marka magac qabiil buu ahaa sharaftay dilaysaa waxaad samaysaa cunugaa rag u dir hal afduubo marka hore janalka gacanta kaga dhig kadibna dhaadhiciya markaan idin leeyahay macnaha hala sugo de nin weyn oo haddii alla kuu roon yahay xaalad kasta garanaya ama dhalinyaraan anigu maahi hadalkii axmed rashiid waxaan ka dareemay deg deg iyo cunugaas deeq darajo ahi in cunug axmed rashiid waxay uga xiran yihiin axmed rashiid inuu danaynayo dhimashada deeq darajo waxaan ku yidhi axmed rashiid oo garow hadduu joogo aniga iida waan soo wacayna waay isla markiiba waa raaraadsay deeq darajo aan raadsay 10 daqiiqo iguma qaadan ilaa 5 daqiiqo iguma qaadan markaan deeq darajo afkayga kula hadlay deeq darajo ada ii warran daa'iri xaaladda iga warran baa iri nin aada u murugaysan waxbuu ii taataabtay in adeerow waa dhibaataysnahay halkaan amni ahaan baan usoo galay saasaan igu dhacday meeshaasna waa awood baa lii adeegsaday ninka noocaasana saa ii galay hadda anu ninkii baan isnaqaanaa iyo waa la hadla iyo midna ma oran ii warran kaliyahay ninka noocaasa saa ii galay ninka noocaasaa ii galay maxaa ku caddaynaysaa wuxuu yidhi cadaymihii oo dhan waan haya ha cadaymihii waa haysaa ha isla markii automatic ahaan waxaa maskaxdayda ku soo dhacday caddaynta deeq darajo hayahay inay tahay dhimashada ama ceebta axmed rashiid inta aan la hadlayo ilaa 10 daqiiqa koolka wada saarnayn deeq darajo waa maqlayaa asay laftigiisu waa xasuustaa 10 daqiiqa koolka wada saarnayn 10kaa daqiiqo rashiid way wacay 10kaa daqiiqo dhir waxaan moodaaba in haddana qabaar cusub soo wacay dharrag dha manaan ka baxay baan ka qabtay waxaan ku yidhi ii warran wuxuu yidhi ma hesha ninkii may waa lagu maqan yahay garawade magaalo habeen been ahayd baan ku yidhi habeen daysa markiiba si xogta loo helo waa adag tahay laakiin garaw inuu joogo waa wahay laakiin waa lagu maqan yahay waayahay igu soo celi habeenkii 10 jeer doon soo wac ma qaban laakiin waxa ii soo baxday isla markiiba wiilka afkiisa markaa ka maqlay cadaymihii oo dhan waa haya in axmed rashiid aada u danaynayo in haddii alla kuu roon yahay bahalkii muxuu ahaa wiilkaas la damiyo deeq darajo waas maqalnay war amnigaaga iyo xaaladaada ka warran 100% amnigaygu waa isku hadlayn karaa sugan waa yahay maan yidhi axmed rashiid maalintii soo wacay kama qaban maalinta mid soo wacay kama qaban maalintii ku xigtay wacay waa ka qabtay waxaan ku yidhi yahow ninkaasi caddayn kasta oo bahalkaa u bixiyey gacanta ku haya wuuna soo bandhigaya maxaa ku jeclaysata adigu in la isdhaafiyo wuxuu yidhi ma adigii baa kelmadda ay dhahaya haddii alla kuu roo yahay war miyaada dhiig lahayn caddaymuu keenaya muxuu yihi oo caddaymihii caadiya dee qaybna waa dhegeystaan ku yidhi ma dhegeysatay ha yay ku socdeen bu wuu soo bandhigayaa baan ku yidhi caddaymo codaan dhegeystayo way soo bandhigayaan markaasna wallaahi si fiican waxba sii dhegeysan oo waxa caddayn dhegeysan ma jiray cuniga hadalkiisa un adeer wax kasta waa hayaayo computerkayga wax kasta ku jiraan kelmaddu yidhi baan kaga qanay waa dhegeystaan ku yidhi codad baan dhegeystay waa dhegeystay ma haye hadhan waa soo caynaabi taleefku demi waa dhegeystay markaan idhi baa axmed rashiid sukaa demisay alxaasil waxaan ka soo wadaa axmed rashiid horta anigu aqoonna waa u lahaa markii hore mana moodeyn qof dhaqanka noocaasa isagoo magac dowladeed iyo shaati leh sintiyo inta lagu adeegsado sintiyo kenya waa aqaanaa corruptionka ku badan laakiin fly scott ciidamada waa isagoo xukumo oo dowladda ku matala yahay waa kuwa ayago musuq maasuqa iyo criminalka iyo gaangiska loogu talagalay ka hortagaan
ما هين كوي لو تلقى إن weliba Kenya dadkii shacabkiisii Soomaalidiisii ilma adeertiis kuwa asagii loogu adeegsaday la yaab bay ugu noqotay la yaab yaa ka bay ugu noqotay hadalka Sharma Boy waxa ku jiray fanaaniin badan hadii la ku roon yahay YouTuber badan oo Kenya ku nool ama baal ku nool inaysan xor ahayn in dad xoorta lagu haysto in qof miskiina oo calaan dhalaya oo caruurta iyo naagaha un aade ee aysan rag is helin in uu adeegsado daciif dhalay ee sintii qaadanaya ee Kenya kuwa Kenya jooga urdaaraya kuwa Kenya jooga oo kale waa urdaaraya ninka adiyaal ku Axmed Rashiid oo kale hadii inta ugu hoosiyo baalkii Axmed Rashiid ma ay dhageyso horta damiir hadaa leedahay afka ay ugu hadlaysay maanta iyo qamandacada maanta ka muuqatahay aad bay kala fogay horta waxba ka sheegi maayo anigu iyo waxba hadii la ku rooyo hada ku dhihi maayo laakiin dadnimo xumo iyo damiir xumo intaas kugu filan dadnimo xumo iyo damiir xumo intaba in wiil yara oo handicap oo hadii la ku rooyo yahay caloosh la ciyaara oo aan nasab ahayn oo bidda dhalaya oo sharmuuta ah oo asagu jirkiisa ka ganacsadahay inuu ku adeegsado sintii kugu adeegsado horta bahadiltaas kugu filan ilaahay baan xaq alla iyo xaq bini aadam ba ka bahadilanta kan kala soo haray kan kale ballan waxaan ka qaadaya ama umada Soomaaliyeed oo ballan qaadaya in aan salkiisa xabsi ka dhigo inuu xabsi idin galo ana ballan ka qaaday Sharma Boy waxaan leeyahay adeer iyo deeqdar jaba horta ciyaar fiican baad ciyaadeen gumba idin heshay waxaan nasab ahayn baa idin helay laakiin aakhirkii maanta sir badan baad fashiliseen dad badan oo dulmanaa ama Kenya fadhiya ama meel kale fadhiyeen oo caloosho shaqaystaan loo adeegsan jireen waxaad u noqon doontaan xurriyad xataa hadda dhiman lahaydeen dhimashadiina kuwa xabsiga kaga bixi lahaa deeq darajo iyo Sharma Boy waxaan leeyahay tusaale u noqon doontaan dadka xabsiyada ku jira fanaaniinta xabsiyada ku jira YouTuberada xabsiyada ku jira public figurada xabsiyada ku jira tusaale noqon doonta tusaalahaas oo ah xataa hadda dhiman lahaydeen waxaad noqonaysaan kuwa dhimashadooda xabsiga laga soo baxo tusaale fiican baan Soomaalidu ku jiraan idinkoo qabiil ka hufan idinkoo hadii la ku roon yahay qabyaalad ka hufan idinkoo dadnimadiina isku taageeray iyo qofnimadiina idinkoo maanta laba qabiil ka soo kala jeeda haddana walaala ah oo wada socda cadow kasto noocaas oo kale aakhirkaas ku dambeynaya ceebtaas iyo ilhaamaas ku banaynaya YouTube baan jabsaday anigu waxba ma hayn karo haddaad cid jabsan kadib ama cid ka dhaxal kadib annaga kuwa ka dhaxal lahay hadda aqoon leedahay anigu ku dhihi maayo cid baankiisa ka dhaxalaya laakiin waxaan ballan qaadayaa xabsiga in liinta lagu cabo xabsiga cadayn kastoo aan hayana miiskan la taagna maanta saan isbaranaya waxaana ka ballan qaadayaa labada wiil xooga ayaamaad ciishooteen laakiin ciilkaas waxaad ku ilaawi doonteen nagasti way maalmaha soo socda arki doonta bilaha soo socda arki doonta xabsiga in laga oo intiina inuu ka dambayso aan ka ballan qaadaya oo kafaare ilaahay ku galay oo nidar ku galay oo intiina in oo ka dambayso oo xabsiga dad badan ka soo dhaxooya aad baa islaam ya waxaan leeyahay maalinta hadii inuu caato Sharma Boy iyo deeqdar isna waxaan leeyahay guuleysatee si guuleysta riya assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh galabnimo wanaagsan soo noqod wanaagsan waxaan rabaa galabta inaan dul istaago Sharma Boy arrin dadka aad uga dahsooneed buu banaanka soo dhiga waxaan rabaa aniguna intaan ku ogahay inaan ka sheego halkan galabta Sharma Boy oo hadlaya hadalkiisa waxa kamid ahayd igahaynin oo waxbana igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anigu garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaga shit wuxuu igu yiri nina bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabar maskiin ah
waxay ugu tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaadaan naloo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dahorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa waaye wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur Allah markii aan ka daba tagay aan dhahay war ha ka baqin waxba idinku ma sameyn karo waxaa la itahaa Axmed Rasiid aan dhahay waxaa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii aan arkay ninka halkaan kaga muuqda sawirkiisa ninka waxa la yiraahdaa Axmed Rasiid wuxuu haystaa ciidamada la yiraahdo Fly Scott ama criminalka iyo gangiska la dagaalama shaatiga uu qabo iyo haddii alla ku roon yahay awoodda uu leeyahayna iyo qaabka uu adeegsadayna waa wax aad iyo aad idinna aad u aragteen ana aan rabo in yaroo ka mid ah balna aan ka sheego horta inta aniga hawsha kala socday habeenada ka mid ah ayaantii Sharma Boy lagu soo wareejiyey macnaha lagala wareegay YouTube-kiisa anoo habeenkaas hadalkaygu wuxuu ahaa in qabiil ahaan Sharma Boy deeq darajo inuu YouTube-ka wareejiyey xogtaas ninka aan ka helayay iguna lahaa wax la yiraahdo afduub ma jiro markii suuqa la soo gashay deeq darajo la afduubay been idin sheegi maayo horta Axmed Rasiid buu ah oo si toos ah qadka igula jiray haddii inkala timaadaan rag badan oo meeshaan habeenkaas xitaa qadka rag igula jiray waa joogaan waa nool yihiin cadaymahoodana waa hayaayo haddii cid inkiraysa timaado meeshaan ka wada hadlaynayo waxaan is dhahaynay intaba cadaymahooda ayagana waa hayaa laakiin hadda ma doonayo inaan idinla wadaago laakiin waagii inkira timaado ama Axmed Rasiid waxaan kiro ama haddii alla ku roon yahay cid difaacaysa aan arko markaasaan ayagana soo bandhigi doona waxaa dhacday habeenkaas Axmed Rasiid inuu aniga igu lahaa ninka la yiraahdo Sharma Boy qabiil ahaan buu u wareey ninka la yiraahdo u dhabar jabiyey deeq darajo isagoo yara dhacay deeq darajo inuu qabiil ku raacay qofkii calaanka ahaa wuxuu yiri deeq darajaan ku raadinayaa waana soo qabanayaa Ayuubow anaana wax kasta kaaga keenaya afkiisa waayaaba habeenkii ku xigay habeenkii saddex habeenka waxaan meenayaa inay ahayd bishu 2 July 2 June inay ahayd Romania 2 June yes 2 June be muddo ka bacdi adii saddex habeen ka bacdi Axmed Rasiid uu soo wacay Axmed Rasiid oo aan wajigii hore aan ku aqaanay aan ahayn aad degdeg badan ugu jiro hadalka boobaya waliba telefoon baan ku hadlayay tirka 6 jeer oo aan isku celis lahayn dhar igu soo celi waa ka qabtay wax ku waran taliyo wuxuu iga bilaabay ma ogtahay wiilkii aan raadinayay oo ninka dhabar jabiyey oo adna ay ugu tiri cadayntiisa ii keen hadii asagu dhabar jabiyey inuu maanta garow ka degay waxa yar maya wuxuu garow ninkaas ka degay waa gart degdeg garow inta uga howlgashid wuxuu rabaa ninkaasi Sharma Boy inuu kala dhiciyo in xoog sanadka loo qaaday waana qabiili halka Nairobi baa yahda ayuu anaga asku qabiila anaga degan wax adii alla ku roon yahay hebel laayo kala iyo hebel kala reey hebel iyo cid wax uga fulin ka dhamale hadii ciidan lacag siisay ama ciidan wax ka fuliyaan ana ka fuliyo way taqaana cid kale lama adeegsado wallahi ilaahay baa iga sareey waa gart maxaa sameeyaa cunugaas qabo YouTube-kiina asaga gacanta ku haya fiidiyowga uu daahay ninkii bahal ka soo dhaxlayay cunuga galiyay taasoo ila hadlaya YouTube-kan cid ka qaaday ma jiro ninka la yiraahdo waana khiyaali ninka la yiraahdo garowna wuxuu u tagay inuu ninka la yiraahdo Sharma Boy ku dhaho waa la dhacayo saaxiibtinimo u sii muujiyo aan laabti jirin waa tahay de Sharma Boy hadii arkay Sharma Boy ahaa kii YouTube-ka lahaayo saaxiibkii ahaa maxaan sameynaa faraha oo qaadna marka maya magaceena ay dilaysaa sharaftay dilaysaa magacu igala hadlay marka magac qabiil buu ahaa sharaftay dilaysaa waxaad samaysaa cunuga rag u dir hal afduubo marka hore channel gacanta kaga dhig kadibna
dhaadhiciya markaan idin leeyahay macnaha hala sugo de nin weyn oo haddii alla kuu roon yahay xaalad kasta garanaya ama dhalinyaraan anigu maahi hadalkii axmed rashiid waxaan ka dareemay deg deg iyo cunugaas deeq darajo ahi in cunug axmed rashiid waxay uga xiran yihiin axmed rashiid inuu danaynayo dhimashada deeq darajo waxaan ku yidhi axmed rashiid oo garow hadduu joogo aniga iida waan soo wacayna waay isla markiiba waa raaraadsay deeq darajo aan raadsay 10 daqiiqo iguma qaadan ilaa 5 daqiiqo iguma qaadan markaan deeq darajo afkayga kula hadlay deeq darajo ada ii warran daa'iri xaaladda iga warran baa iri nin aada u murugaysan waxbuu ii taataabtay in adeerow waa dhibaataysnahay halkaan amni ahaan baan usoo galay saasaan igu dhacday meeshaasna waa awood baa lii adeegsaday ninka noocaasana saa ii galay hadda anigu ninkii baan isnaqaanaa iyo waa la hadla iyo midna ma oran ii warran kaliyahay ninka noocaasa saa ii galay ninka noocaasaa ii galay maxaa ku caddaynaysaa wuxuu yidhi cadaymihii oo dhan waan haya ha cadaymihii waa haysaa ha isla markii automatic ahaan waxaa maskaxdayda ku soo dhacday caddaynta deeq darajo hayahay inay tahay dhimashada ama ceebta axmed rashiid inta aan la hadlayo ilaa 10 daqiiqan koolka wada saarnayn deeq darajo waa maqlayaa asay laftigiisu waa xasuustaa 10 daqiiqan koolka wada saarnayn 10 daqiiqo rashiid way wacay 10 daqiiqo dhir waxaan moodaaba in haddana qabaar cusub soo wacay dharrag dha mana ka baxay waan ka qabtay waxaan ku yidhi ii warran wuxuu yidhi ma hesha ninkii may waa lagu maqan yahay garawade magaalo habeen been ahayd baan ku yidhi habeen de isla markiiba si xogta loo helo waa adag tahay laakiin garow inuu joogo waa wahay laakiin waa lagu maqan yahay waa yahay igu soo celi habeenkii 10 jeer doon soo wac ma qaban laakiin waxa ii soo baxday isla markiiba wiilka afkiisa markaan ka maqlay cadaymihii oo dhan waa haya in axmed rashiid aada u danaynayo in haddii alla kuu roon yahay bahalkii muxuu ahaa wiilkaas la damiyo deeq darajo waas maqalnay war amnigaaga iyo xaaladaada ka warran 100% amnigaygu waa isku hadlayn karaa sugay waa yahay maan yidhi axmed rashiid maalintii soo wacay kama qaban maalin dambe soo wacay kama qaban maalintii ku xigtay wacay waa ka qabtay waxaan ku yidhi yahow ninkaasi caddayn kasta oo uu bahalkaa u bixiyey gacanta ku haya wuuna soo bandhigaya maxaa ku jeclaysata adigu in la isdhaafiyo wuxuu yidhi ma adigii baa kelmadda ay dhahaya haddii alla kuu roo yahay war miyaada dhiig lahayn caddaymihuu keenaya muxuu yihi oo cadaymihii caadiya dee qaybna waa dhegeystaan ku yidhi ma dhegeysatay ha yay ku socdeen bu wuu soo bandhigayaa baan ku yidhi cadaymo codaan dhegeystayo way soo bandhigayaan markaasna wallaahi si fiican waxba sii dhegeysan oo waxa cadaymo aan dhegeysan ma jiray cuniga hadalkiisa un adeero wax kasta waa hayaayo computerkayga wax kasta ku jiraan kelmaddu yidhi maan kaga qaa waa dhegeystaan ku yidhi codad baan dhegeystay waa dhegeystay ma haye hadhan waa soo caynaabi taleefku demi waa dhegeystay markaan idhi baa axmed rashiid sukaa demisay alxaasil waxaan ka soo wadaa axmed rashiid horta anigu aqoonna waa u lahaa markii hore mana moodeyn qof dhaqanka noocaas isagoo magac dowladeed iyo shaati leh sintiyo inta lagu adeegsado sintiyo kenya waa aqaanaa corruptionka ku badan laakiin fly scott ciidamada waa isagoo xukumo oo dowladda ku matala yahay waa kuwa ayago musuq maasuqa iyo criminalka iyo gangiska loogu talagalay ka hortagaan ee ma ahayn kuwii loogu talagalay in weliba kenya dadkii shacabkiisii soomaalidiisii ilma adeertiis kuwa isagii loogu adeegsaday la yaab bay ugu noqotay la yaab yaa makaag bay ugu noqotay hadalka shanobay waxaa ku jiray fanaaniin badan haddii alla kuu roon yahay youtubero badan oo kenya ku nool ama baali ku nool inaysan xor ahayn in dad xuurta lagu haysto in qof miskiina oo calaan dhalaya oo caruurta iyo naagaha un aade
ee aysan rag ishelin inuu adeegsado daciif dhalay ee sintiya qaadanaya ee Kenya kuwa Kenya jooga oo curdaaraya kuwa Kenya jooga oo kale waa u curdaarayaayo ninka haddii la ku Axmed Rashiid oo kale haddii ay inta ugu hoosiyo baalkii Axmed Rashiid baa dhageyso horta damiir hadda leedahay afka ay ugu hadlaysay maanta iyo qamandacada maanta ka muuqatahay aad bay kala fogyiin horta waxba ka sheegi ma anigu iyo waxba haddii la ku rooyo hada ku dhihi maayo laakiin dadnimo xumo iyo damiir xumo intaas kugu filan dadnimo xumo iyo damiir xumo intaba in wiil yara oo handikaaba oo haddii la ku rooyahay caloosho la ciyaara oo aan nasab ahayn oo bidda dhalaya oo sharmuuto ah oo asagu jirkiisa ka ganacsadahay inuu ku adeegsado sintiya kugu adeegsado horta bahadiltaas kugu filan ilaahay baan xaq alla iyo xaq bini aadam ba ka bahadilanta kan kala soo haray kan kale ballan waxaan ka qaadaya ama umada Soomaaliyeed oo ballan qaadaya in aan salkiisa xabsi ka dhigo inuu xabsi idin galo ana ballan idinka qaaday Sharma Boy waxaan leeyahay adeer iyo deeqdar jaba horta ciyaar fiican baad ciyaadeen gun baa idin heshay waxaan nasab ahayn baa idin helay laakiin aakhirkii maanta sir badan baad fashiliseen dad badan oo dulmanaa ama Kenya fadhiya ama meel kale fadhiyayna oo caloosho shaqaysta loo adeegsan jirayna waxaad u noqon doontaan xurriyad xataa haddaad dhiman lahaydeen dhimashadiina kuwa xabsiga kaga bixi lahaa deeq darajo iyo Sharma Boy waxaan leeyahay tusaale u noqon doontaan dadka xabsiyada ku jira fanaaniinta xabsiyada ku jira youtuberada xabsiyada ku jira public figurada xabsiyada ku jira tusaale noqon doontaan tusaalahaas oo ah xataa haddaad dhiman lahaydeen waxaad noqonaysaan kuwa dhimashadooda xabsiga looga soo baxo tusaale fiican baana Soomaalidu ku jiraan idinkoo qabiil ka hufan idinkoo haddii la ku rooyahay qabyaalad ka hufan idinkoo dadnimadiina isku taageeray iyo qofnimadiina idinkoo maanta laba qabiil ka soo kala jeeda haddana walaala ah oo wada socda cadow kasto noocaas oo kale aakhirkaas ku dambeynaya ceebtaas iyo ilhaamaas ku banaynaya YouTube baan jabsaday anigu waxba ma hayn karo haddaad cid jabsan kadib ama cid ka dhaxal kadib annaga kuwa yaga ka dhaxal lahay hadda aqoon leedahay anigu dhihi maayo cid baan kiisa ka dhaxalaya laakiin waxaan ballan qaadayaa xabsiga in liinta lagu cabo xabsiga caddayn kastoo aan hayana miiskan la taagin maantaan isbaranaya waxaana ka ballan qaadayaa labada wiil xooga ayaamaad ciishooteen laakiin ciilkaas waxaad ku ilaawi doonteen nagasti wey maalmaha soo socda arki doonta bilaha soo socda arki doonta xabsiga in laga oohintiina inuu ka dambayso aan ka ballan qaadaya oo kafaare ilaahay ku galay oo nidir ku galay oohintiina in oohin ka dambayso oo xabsiga dad badan ka soo dhaxooya aad baa idin salaamaya waxaan leeyahay maalinta idin wacaato Sharma Boy iyo deeqdar isna waxaan leeyahay guulaysatee si guulaysta riya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu galabnimo wanaagsan isu soo noqod wanaagsan waxaan rabaa galabta inaan dul istaago Sharma Boy arrin dadka aad uga dahsooneed buu banaanka soo dhiga waxaan rabaa aniguna intaan ku ogahay inaan ka sheego halkan galabta Sharma Boy oo hadlaya hadalkiisa waxa kamid ahayd igahaynin oo waxbana igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anigu garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaga shit wuxuu igu yiri nina bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabar maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada noo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa waay wuxuu adeegsaday nin laga baqo oo Rashiid Nuur Allah markii aan ka daba tagay aan dhahay war ha ka baqin waxba idinku ma sameyn karo waxa la itaha Axmed Rashiid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninka halkaan kaga muuqda sawirkiisa ninka waxa la yiraahdaa Axmed Rashiid wuxuu haystaa ciidamada la yiraahdo Fly Scott ama criminalka iyo gangiska la dagaalama
shaatiga uu qabo iyo haddii alla kuu ron yahay awoodda uu leeyahayna iyo qaabka u adeegsadayna dee wax aad iyo aad idinna aad u aragteen anna aan rabo in yaroo ka mid ah bal inaan ka sheego. horta inta aniga hawshaa kala socday habeenada ka mid ah ayaantii Sharma Boy lagu soo wareejiyey macnaha lagala wareegay YouTube-kiisa. anoo habeenkaas hadlay hadalkaygu wuxuu ahaa in qabiil ahaan Sharma Boy deeq darajo inuu YouTube-ka u wareejiyey. xogtaas ninka aan ka helayey iguna lahaa wax la yidhaah afduub ma jiro markii suuqa la soo gashay deeq darashaa la afduubay been idiin sheegi maya. horta Axmed Rashiid buu ahaa oo si toosa khadka igula jiray. haddii inkiraad timaadaan rag badan oo meeshaan habeenkaas hataa khadka rag igula jiray waa joogaano waa nool yihiin. caddaymahoodana waa hayaayo haddii cid inkiraysaa timaado meeshaan ka wada hadlaynayo waxaan isdhehaynay intaba caddaymahooda ayagana waa hayaa. laakiin hadda ma doonayo inaan idinla wadaago. laakiin waagii inkiraad timaado ama Axmed Rashiid wax inkiro ama haddii alla kuu ron yahay cid difaacaysa aan arko markaasaan ayagana soo bandhigi doona. waxaa dhacday habeenkaas Axmed Rashiid inuu aniga igu lahaa ninka la yidhahdo Sharma Boy qabiil ahaan buu u wareey ninka la yidhahdo u dhabar jabiyey deeq darajo isagoo igala dhicinaya deeq darajo inuu qabiil ku raacay qofkii calaanka ahaa. wuxuu yidhi deeq darajaan kuu raadinayaa waana soo qabanayaa Ayuubow anaana wax kasta kaaga keenaya afkiisa. waayahabaa habeenkii ku xigay habeenku saddexa habeenka waxaan umaynayaa inay ahayd bishu 2 Juun inay ahayd umaynaya 2 Juun yes 2 Juun be muddo ka bacdi adiga 3 habeen ka bacdi Axmed Rashiid uu soo wacay. Axmed Rashiid oo aan wajigii hore aan ku aqaanay aan ahayn aad degdeg badan ugu jiro hadalka boobaya weliba telefoon baan ku hadlayay tiraka 6 jeer oo aan isku celis lahayn dharrag igu soo celi. waa ka qabtay wax ku waran taliyo wuxuu iga bilaabay ma ogtahay wiilkii aan raadinayay oo ninka dhabar jabiyey oo adna ay ugu tiri cadayntiisa ii keen haddii asagu dhabar jabiyey inuu maanta garow ka degay. waxaan yidhi maya. wuxuu ii garow ninkaas ka deg waa garta degdeg garow inta uga howlgashid wuxuu rabaa ninkaasi Sharma Boy inuu kala dhiciyo in xoog janarka looga qaaday waana qabiili halkaan Nairobi baa la yihahdaa Ayuubow annaga asku qabiilah annagaa degan wax haddii alla kuu ron yahay hebelaayo kale iyo hebel kaloo ree hebele iyo cid wax uga fulin kardha ma leh. haddii ciidan lacag siisay ama ciidan wax ka fuliyaan anaa ka fuliyo waa taqaanaa cid kale lama adeegsado. wallahi ilaah baa iga sarreeya. waa garta maxaa sameeya cunugaas qabo YouTube-kiina asaga gacanta ku haya fiidiyowga uu ninkii bahal ka soo dhaxadlayay cunugaa geliyey saasuu ila hadlaya. YouTube-kan cid ka qaaday ma jiro. ninka la yidhaahdo waana khiyaali ninka la yidhaahdo garowwana wuxuu u tegay inuu ninka la yidhaahdo Sharma Boy ku dhaho waa lay dhacayo saaxiibtinimo usii muujiyo aan laabti jirin. waa taha dee Sharma Boy haddays arkayaan Sharma Boy ahaa kii YouTube-ka lahaayo saaxiibkii ahaa maxaan sameynaa faraha uga qaadna marka maya. magaceenay dilaysaa sharaftay dilaysaa magacuu igala hadlay marka magac qabiil buu ahaa sharaftay dilaysaa. waxaad samaysaa cunugaa rag u dir hal afduubo marka hore channel gacanta kaga dhig kadibna dhaadhiciya markaan leeyahay macnaha hala sugo. de nin weyn oo haddii alla kuu roon yahay xaalad kasta garanaya ama dhalinyaraan anigu maahi hadalkii Axmed Rashiid waxaan ka dareemay degdeg iyo cunugaas deeq darajo ahi in Axmed Rashiid waxay uga xiran yihiin. Axmed Rashiid inuu danaynayo dhimashada deeq darajo. waxaan ku yidhi Axmed Rashiid oo garow hadduu joogo aniga iida waan soo wacayna waay isla markii waa raadsay deeq darajada aan raadsay 10 daqiiqo iguma qaadan ilaa 5 daqiiqo